dunida oo dhan waxay indhaha ku haysay feerkii cuslaa ee ku balansanaayeen Tyson iyo Paul koox xalay waqti dambe la ciyaaray. Muxuu ku soo dhamaaday feerkii cuslaa ee Tyson iyo Paul? Jake Paul ayaa ku guuleystay ciyaartii feerkii xalay dhex martay isaga iyo Mike Tyson, waxaana garsoorayaashu ku dhawaaqeen inay ku kala badiyeen dhibco kala 80, 72, 79, 73, 79 iyo 73 mar kale. Feeryahankan oo ah YouTuber ee lagu magacaabo Jake Paul wuxuu beer madow ah oo badi uga tagay feeryahanka weyn ee Mike Tyson oo labada jeer ku guuleystay isla reebka feerka dunida isagoo dhibco dirqi ah ku helay 70,000 taageerayaal oo niyad jabsanaa ayaa ku sugnaa gudaha Texas, halka malaayiin kalena ay ka daawanayeen feerka aadka loo wada sugayay oo si toos ah uga daawanayeen TV-yada. Tyson sida aad ka filan karto indhaadiisu ta 58 oon si xirfad leh u tartamay 19 sano la soo dhaafay wuxuu dugaashanayay shakhsiyadiisii hore. Paul 20 jir ah ayaa ku cusub feerka laakiin aad buu u daayar yahay oo aad ayuu orod badnaa xilliga ciyaarta. Wuxuu Tyson ku ilaaliyay inuu meel fog ka joogo. Tyson ayaa la dareemay inuusan firfircooneyn, wuxuu la soo dhaweyn geesinimo leh markuu sportka soo galay ama goobta ciyaarta dagaal ka hor, laakiin waxaa jira guux oo niyad jab ah markuu dagaalku dhammaad ku sii dhawaaday. Xilli aan raaxo lahayn feerka kadib, Tyson markii uu guuldareystay markiisii 57 feer uu galay wuxuu u yeeray Paul walaalkii Logan wuxuuna u soo jeediyay inuu mar kale la dagaalami karo. Labada nin waxay xirnaayeen golofyo culus oo lagu daray buufin dheeri ah, taasoo ahayd shuruudaha uu dejiyay guddiga Texas oo oggolaaday in dagaalku noqdo mid xirfadeed, inkastoo uu yahay go'aan oo hadda u muuqda mid la yaab leh. Golofyada fudud ayaa xitaa aan saameyn lahayn wax farqi ah maadaama feerkii la isla dhaafsanayay uusan xitaa midkoodna istaagi karidi karin labada tartame. Tyson wuxuu feerka ku dul hubsaday ninka iska soo horjeedeen oo keliya 10 jeer intuu socday dagaalka oo dhan, halka Paul uu dhinaca kale riday 78 jeer. Paul wuxuu caanimadiisa ku helay muuqaallo toos ah oo soo dhigi jiray internetka kuwa uu ku helay taageerayaal ku xiran oo gaaray ilaa 70 milyan kahor intuusan u diga rogan feerka. Wuxuu ku guuleystay ilaa 11 feer oo adag, halka laga bediyay ciyaar feer. Tommy Fury wuxuuna markale la soo baxay doonis xooggan oo ah inuu la dagaalamo xiddig reer Mexico Saul Canelo Alvarez. Isagu wuxuu og yahay inuu raadinayo lacag, markaa wuxuu og yahay halka lacagtu jirto, ayuu yiri Paul. Awood leh oo Jake Paul uu soo bandhigay ayuu kaga adkaaday mid ka mid ah feeryahanadii ugu fiicnaa abid. $40 milyan ayuu ku guuleystay Jake. Kaliya 4 dhibcood ayaa looga qaaday 27 jirka. 40 milyan oo qaatay Jake Paul ka oo ka adkaaday Tyson.